fiiri bawalwalen nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu noqday magaalada basar boqorkeeda ayuu maalin wuxuu soo fuulay meesha kore ee gurigiisa qasriga ah siduu fiirinayo dadka waddada socdo waxay ishiisa durbadiiba qabatay wiil yar oo dhallinyaro ah aad u duruufaysan dharkiisa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wiilka yarka ayuu u qalbi jilcanaaday asigoo il naxariis leh ku eegaya waxaa u soo banbaxay jibriil calayhi salaam markaasuu ku yidhi yuusufow miyaad garanaysaa wiilkaa dhallinyarada ah nebiga ilaahayow markaasuu ku yidhi may jibriil calayhi salaam ayaa ku yidhi waxaad xasuusataa waqtigii ee haweenaydii boqorka ay ku tidhi ninkan ayaa i xoogi rabay markaad albaabka ku kulanteen ninkeeda kadib wiil yar oo radiico naaska la nuujinayo kuu markhaati kaco mahdiga ku jiro yidhi khamiiska yuusuf haddii uu gadaal ka jeexan yahay ayada ayaa gardaran arrinkiina sidii noqday ninkii casiiska ama boqorka ka ahayna ku cafiyey yuusuf calayhi salaam wuxuu yidhi haa waan xasuustay ma wiilkaasaa jibriil ayaa ku yidhi haa huwa shaab waa wiilka dhallinyarada ahaa radiic ahaa yuusuf calayhi salaam ergaayuu u diray i keena ayuu ku yidhi waa loo keenay wuu karaameeyey aad ayuu u marti qaaday dhar qurux badan oo ku faanana wuu u siiyey jibriil ayaa dhoola caddeeyey markaasaa nabiyullaahi yuusuf ku yidhi jibriil ma waxaad ku faraxdaa mala dhoola caddaysay wixii aan bixiyo un siiyo karaameeyey waxaa sirkaa jibriil calayhi salaam ayaa ku yidhi maya waxaan la dhoola caddeeyey wiilkan hal mar ayuu kuu markhaati kacay markaasaa saan u karaamaysay bal ka waran sidee xaalku noqon doonaa rabbi markuu la macaamuloodo addoomankii markhaati kaceen u qareen waxdaaniyadiisa maalin walba tiro aad u fara badan oo towxiidka ashhadu an laa ilaaha ila allah qireen sida ilaahay subxaanahu watacaala u karaameyn doonaa allah ha nagu daro kuwa ilaahay subxaanahu watacaala bisababi shahaadateynkaas addunya aakhiro wanaag ku siiyo أشهد أن لا